magaaladan beledweyne oo joogno waxaan u malaynayaa in badan lacagta shilinka Soomaaliga kamaysan shaqeynin dadka ganacsatada oo reer beledweyne joojiyay lacagihii aad iyo aad aan ugu darsan shilinka Soomaaliga dhaqaale weyn ayaa markii hore u soo gali jiray xagga ganacsiga sababta loo joojin waxay tahay lacagtii oo socota la diiday nin walba wuxuu yiraahdaa iga fogay waxba ma ka gadanayo ummadda markii maadaama lacagtii lagu diiday damba iskaga joogsatay marka dib loo raaco marka waxyaabaha sababay kow waxa kamid ah dad soo saarayo lacago aan ahayn lacagihii saxda ah ee la isticmaalay inay soo daabulaan ay suuqii soo geliyaan lacagtii waa la diiday lacagtii markii la diiday waxay sababtay tii hore shaqeynaysan in la diiday waayo adiga lacagtii haddaad qaadato meel aad uga soo adeegato aan lahayn qofka aad u geyso ku leeyahay dollar si adigana aad qaadato xoogaa meeshaas waxa loo dareemay in hantidaada ay ku lumayso saamaysay dadkii ama reer miyiga ahay ama waratada ahay ama masaakiinta ahay iyo dadkii iska caadiga ah dan yarta ahay iyo qoysaska xaafadaha ku nool si toos ah u wada saameysay saameyntaas marka waxyaabaha ka dhashay waxa kamid ah in suuqi dad badan oo kamid ah oo shaqeynay ay shaqadii ka istaageen waxa kamid ah ganacsadayaashii yararka ahay waxay wax ku iibsan jireen dollarka macnaha shilin Soomaaliga wax ku iibsan jireen shilin Soomaaliga markuu istaagay qofkii itemiska gadaysa wax yar oo hay gabadha madaxa ku sidato sheeg yarka buskudkii wax taxaafada ku soo sameeyay suuqa ka soo iibsanaysa iyo canuga yarka caseeya iyo midka masaakiinta ah masjidka inta istaago wax yar ku noolay oo dadkaas macnaha ku kaalmeeyaan waxay noqdeen dadkii zero inay istaagaan dadka qaarna ay sii noolaan karaan nolol maalmeedkan waxaan ka raadsanaa bataata iyo ilaahay ku macaab ambe iyo waxyaalahaas yar-yarka aan ka raadsanaa hadda hotelyonkayni lacagihii siday u dhaceen aad iyo aad ay caqabado culays badan noo soo saarnay noloshayna aad ay u liidataa sidii lacagihii u dhaceen anigaas waa yeelan ma aqaano in lee tuuro ma ogaya ma tuuro kari lay tuuro ma ogaya ma tuuro kari wax igu jira iyo wax kale ma aqaan waa inaan iraaha dadka iyo fiiriya waxaan ma ii soo dhaceen waxaan masaana iga yihiin aan iraaha waa lacagihii aad iyo aad aan ugu darsanay annaga xataa ganacsate ahaan dad macaamiil waxaan lahaynay shilin Soomaaliga inay noo keenan alaab yar oo noo gataan sida miyiga oo kala soolarada oo kala nalalka oo kale noo gataan kadib haddana ayaga danooda kale hadda meesha ma ku jirtaba qofku waa inuu dollar wato ama soo EFC wato waxa loo baahan yahay dadka meediya oqalada magaalada ganacsatada maamulka gobolka iyo dhammaan dadka bulshada indhaha u ah inay wacyigelin guud ay sameeyaan lacagtaana system sax ah iyo lacag sax oo la isleeyahay rajada laga qabo inaysan burbur ku imaan ay fiican tahay in dadkan loo keeno aad loo baahan yahay